Sida lagu soo guuro Jarmalka shaqo la'aan. Waad u guuri kartaa Jarmalka xataa haddii aadan shaqo haysan. Habsocodka fududaynta waxaa go'aamin doona dhalashadaada. Muwaadiniinta EU ayaa waxay si fudud ugu safri karaan Jarmalka oo ay shaqo u raadin karaan. Muwaadiniinta aan ka tirsanayn Midowga Yurub waa inay hore u dalbadaan fiiso. Ma rabtaa inaad u guurto Jarmalka laakiin weli ma helin shaqo? Xitaa haddii aadan haysan shaqo siin waxaa jira fursado badan xarunta dhaqaalaha ee Yurub. Muwaadiniinta Yurub iyo kuwa aan Midowga Yurub waxay booqan karaan Jarmalka oo ay gaaraan ujeedooyinkooda. U guuritaanka Jarmalka shaqo la'aan waa wax adag, gaar ahaan dadka ka baxsan Midowga Yurub. Waxay aad ugu tiirsan tahay dhiirigelintaada, qorshayaasha mustaqbalka, waxbarashada, iyo aqoonta luqadda. Hel fiisa shaqaale doonka Jarmalka. Fiisaha shaqada doonka ah ee Jarmalka waa oggolaanshaha deganaanshaha muddada dheer kaas oo kuu oggolaanaya inaad dalka joogto oo aad shaqo raadsato ilaa 6 bilood. Fiisadani waa hindisaha dowladda federaalka Jarmalka si loogu dhiirigeliyo xirfadlayaal aqoon leh oo ka socda waddamada saddexaad marka laga reebo kuwa aan kor ku soo sheegnay inay soo galaan waddanka, shaqo helaan, oo ay joogaan muddada dheer. Doorashadan waxaa heli kara oo keliya muwaadiniinta aan ka tirsanayn Midowga Yurub Fiisaha ayaa u oggolaanaya inay galaan Jarmalka oo ay joogaan 6 bilood si ay shaqo u raadsadaan. Marka qofka fiisaha haysta uu helo shaqo ku habboon, fiisaha waxaa lagu beddeli karaa oggolaanshaha joogitaanka shaqada ee waddanka gudihiisa. Eligibility. Si aad u dalbato fiisaha shaqada doonka ee Jarmalka, waa inaad buuxisaa shuruudaha u qalmitaanka qaarkood. Kuwani waa tusaalooyin qaarkood. Shahaadada bachelorka ama ka sareysa maadooyinka la xiriira STEM oo ka socda jaamacad la aqoonsan yahay. Lacag ku filan si aad u muujiso inaad joogi karto Jarmalka adiga oo aan ku tiirsanayn dowladda ama hay'ad kale oo taageero dhaqaale ah €850 bishii. Heerka caymiska caafimaadka kaas oo daryeela qarashyada la xiriira caafimaadkaaga ilaa aad ka hesho oggolaanshaha shaqada ee Jarmalka. Fursadaha ugu fiican ee aad ugu guuri karto Jarmalka shaqo la'aan. Miyaad ku hadashaa Jarmalka ama ma rabtaa inaad barato? Waa maxay asalkaaga waxbarasho? Waa maxay asalkaaga xirfadeed? Marka hore, waa inaan kala saarno muwaadiniinta reer Yurub iyo kuwa aan Yurub ahayn ee qorsheynaya inay soo booqdaan Jarmalka. Sababta tan ayaa ah in qaanuunku si weyn ugu kala duwanaan doono labada. Musharaxiinta dalalka Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa ka mid ah waddamada matalaya. Aagga dhaqaalaha Yurub ee Ireland, Liechtenstein iyo Norway. Switzerland. Saddexdaas qaybood oo dad ah uma baahnid inaad dalbato fiiso ama oggolaansho shaqo. Waxay leeyihiin xuquuq la mid ah tan Jarmalka marka la eego joogitaanka, shaqada, waxbarashada, iyo bilaabidda meherad. Haddii aad tahay muwaadin EU ah, waxaad xor u tahay inaad u guurto Jarmalka wakhti kasta iyo sabab kasta. Qof kasta oo kale, marka laga reebo Australiyaanka, Ameerika, Kuuriyada Koonfureed, Kanadiyaanka, Jabaan, iyo dhowr dal oo kale, waxay u baahan yihiin fiiso si ay u galaan Jarmalka. Waxaa loo oggol yahay inay galaan Jarmalka oo ay dalbadaan fiiso wakhti dheer ah inta ay halkaas joogaan. Si kastaba ha ahaatee, ha dhawaato ama ha dheeraato, dhammaan waddamada aan ka tirsanayn Midowga Yurub waxaa laga rabaa inay helaan oggolaanshaha joogitaanka Jarmalka iyo oggolaanshaha shaqada si ay uga shaqeeyaan Jarmalka.
halkan aad naga dawanayso waa deeqsame fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid magacaygu waa Maryan Adan Xaaji